balay baydh waxaa la yidhi balada raggu balay baydh buu yidhaa isagaana sigta balay baydh baa saleen balay baydh baa saleen ilaahay oo balay baydh baa leen oo balaayo ma rabana halka soo joogta ninkii raba bala rabana dee bidiyadaysa soo xidhi baa la yidhi waa ka la kari laayay ninkii bala raba waa ka la kari laayay oo bidiyadaysa soo qabataa la annagu haddaan nahay degmada Lughaya dadka yaalla ee ilaahay dhigay haddaan nahay oo dadka horta la mariya oo dowladda Soomaaliya ay sunku afurto la mariya roonayde halku kuna ku noolaaday maanta dhul ma annagu ma qaadanayna dhul annagu ma qaadanayna goobo annagu wax ka sokeeyo waxba ma qaadanayna waxaanu qaabnaa in dad la marinayo iyaanu qabnaa ilaahay baa wax mariya ee taayto aan ku ebdayna ma ilaahay baa wax mariya ku ebdimayno waxaan leenahay Soomaaliland col iyo abaar waxaad ku tala gashay colaad nabad ma aha sidani wixii la arki jiray baa lagu sameeyaa waxaan la arki jirina subxaanallah baa laga naqaabale wax subxaanallah laga naqaad wadi subxaanallah wax laga noqo iyaad wadi waxaasi wax ay yeeli karna ma aha wax subxaanallah laga noqo weeyaa waar waxaad ku tala gashay dagaal nin uga roonaan doonana ilaahay nin ka fiicnaan doonana ilaahay baa og dagaalka inuu ku baraari doonayeen baabii doonana Allah og dawladnimada aad ku cadaatay ee inta ku noqotay ummada kula dooday si nabadii dadku kugu taxgalinay waad hay weydo waad siintays waxa yeeshaa annagu ilaahay ala sabiilullah waxaan haynoon maanta u fadhinaa ma jiro sabiilullah baanu fadhinaa wax kale oo u fadhinaa ma jiro arrinay nagama dhaxeeyay waa lagu sheego waad maqli weey waa la inii sheegay waad maqli weey goobaha istariga Lughaya ee gaal iyo islaam wixii naga horeeyay ogaayay hadduu deed adiga dacari ku qabatay dad baayaan dadka wuxuu waa iska kaydaayo daa sidoodii dhulka u daabaa lagu leeyahay sidoodii u daabaa lagu leeyahay waa day weyne ee dagaal baad rabtaa soo amba deedu baa ku macaash amba ilaahay uu dad ku leeyahay ilaahayna ninka darar kullu la jiri maayo annaguna maanta yaxya kama qabno calool ina kama qarqaray ka qarqari mayno caalamkana waan maqashiinaynaa daysyada waan maqashiinaynaa sifahaad wada ma garanayna annagu waa naga lillahi wa rasuul laartaada naga keenay wax yeesha hadal ma jiro meelan iskugu mano ku arrinsanaa ma jirto hal uu dhamaaday waxay dhamaan waay hadal dhamaayay soo waa culaad waxa doonaysa bismillah horta waa maalin jimca dadka muslimka ee islaamka ee nabadda jecel iyaga waa salaamaya cidda nabadiidkaana kuma daray waxa weeye nabadiidku Soomaalidu imika waxay ka dhigtaa qolada ay wax qarxisa iyo nabadiid ku sheegtaa xukuumadda Siiriya nabadiid noqotay waa nabadiid taabaan leeyahay waxaan kaloo ku darayaa degmada Lughaya Siiriya waa kii istaagay kaabadihii u dhaxeeyay saaxil iyo awdal gabadha Samsam la yiraahdo waa tii maalinta wax ka carootay dagaalkii bay ku jirtaa annagu gabadh wax kama sheegi karo cidda ka dhalatay ha qabsataan leenahay taan musabbixina mid baan leenahay war haddaad musharax tahay boqolka qof ee Hargeysa ka qaadayso iyo gobolada ummadda ku nool midkii ku roon doono isagana taabaan leenahay waxa muusiya Samsam ay doonayaan muxuu yahay وبلايا كلا ده وروح الله لا يدي لقى نقوم يا واحد صومالي لا تري مسوا سيرايا نا دبلا أبغى يقول دولة صومالي لا يراك بالسيا أو قبل الله كالبيت ويوقع دماغي سداوا نور نانا وين يوقع دماغي لأن بوح كانوا يل نمرني مجرو نقول بوح وجاب كلا صوب السيرايا هذا توجيه ويدو ضد كلا دكوا مقعوضي ضد كلا دكوا كذا جوجي ما كلنا يمدحون ودقة جوجي السلام عليكم وطبعا قاعد وقاشة وربطي اليوم بان ورقيا هذا الكلام بانتي أنا يبغى بون يريني ذكر ورقيا صدق غلط والله حلبيا
inamada madaxda ee ka dhashay beeshan ee siyaasadda iyo shaqaalaha ah hal baa odhanaya halna qolada xisbiga iyo musharaxa intaan odhanaya halna waxaan odhanayaa madaxweynaha qoladaa laga dhalatay haddaad madaxa ku tihiin in dadkiina aada furfurtaan in waxa la doonayo ee ku qaldan beeshiina aada maraysaan haddaad madax ku tihiin sidaa waran wixii ilaahay siyaad cunaysaana iskaa kaaleyn iyaga leh iskaa kaaleyn haddaad sidaa madax ku tihiin haddaad madax ku tihiin dowladnimada Somaliland oo dowlad loo dhan yahay oo ummaddu aad la xaq tihiinna dee dadkiina wuxuu diiday war dadkaygu ma ogoladha qolada xisbiga iyo musharaxiintan waxaan leeyahay siduu karaar ceelaaba hortay u yidhi ummadda ka soo bilaabata looya caddo axmed shabeel geesdiin ilaa berbera dadka ku nool ee gobolladaasa haddii ay ka awood badan yihiin saddexda qof labada qof ee afarta qof ee bildaane laga helay iyo halka qof ee cabdi geedi laga helay iyo halka qof ee laga helay ceel la helay caasimadaha Somaliland boqolaal qof oo aan isdiiwaangelin baa jira kumayaan aan isdiiwaangelin baa jira hadday 10 qof ama 7 qof ka badan yihiin ayadana intaa iska barakaysan oo anaga codkayaga ha ku tashanina madaxweynena waxaan leeyahay madaxweyne godob laabaad ka degaysay Somaliland ka sii socotay habeenkii dhaweydeen ku wada hadlaynay hotel Rice hadalkayga waxaa ku jiray madaxweynaha ka reeba eedaas eed hore iyo cabasho hore Somaliland أو كله يعني ما جرينا سي شرف قلت لي حلكي ولدي المشرحين الله على يبطو مدعوينا كريباني وعلى مدعوين يدور مع الحيني أخاطب عماني شرفت هذه هورتي قلت لي سي قلت بالله رابطان أمتك قلت بالله لما تقلي دي الصومالي لو أنا ماشي قلت بالله waxaan ku leenahay cidii khaldan oo qabato iyo cidii qumara u dardaartay ka tigbaan leenahay wassalaamu calaykum haddii aan dharku madkeeda oo qadiyaddan imkaan fadhino Somaliland waxay qaran ku tahay oo lagu aqoonsan yahay waa xuduudaha u dhigay Ingiriiska xuduudaha Ingiriiska u dhigay iyaan qaran ku nahay oo maanta jamhuuriyadda Somaliland ku nahay haddii xuduudihii Ingiriiska dhigay ilaaho maanta bedelayna qarannimaduna waxa ku jira qaranimada Somaliland halkaas ku baabaysa waxaan ku haysanaa Puntland waxaan isku haysanaa waxa weeye xadkii Ingiriiska dhigay loo dhigtan baa ayaa wax maraato qaraq suuqeeda maraa qaranka Somaliland xaqas ku soo noqda xaqana jumhuriyadda Soomaaliya ayaa noqotay halka libka la isku hayaa waa xuduudii Ingiriiska dhigay kaabadii baa yaalla Ingiriiska dhigay ee u dhigay gobolka awdo iyo saaxil kala dhigay yaayaan waxa weeye war wixii dawladuna waxay dad ku tahay dad shacabkeeda u dhageysato maqasho oo wixii dib jira ee la tabanayo ay ka deysay dawlad ku tahay haddii la isbindha tiro oo waxa walba halkiisii laga bedelo dawladina jirin mayso mabadina jirin mayso Somaliland la aqoonsi ku qaataysanaysa waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay maanta adiga ka mas'uul dalka maalintii uu yahay xilka ku wareejinayay wuxuu ku yiri waxaan ku wareejiyay dal dhameystiran iyo dawladnimo dhameystiran maxay lagu wareejinay maxay ahayd marka dhameystiran wuxuu hadaa xuduudaha aan ku sheegay ma anti xadka iyo jooga ciidanka joogeen Somaliland haddii xuduudihii Ingiriiska dhigay aad maanta gabadh baabinayso anoo dawlad orod maayo gabadh baabinayso gabadh baabinayso waxa weeye waa ayaan darro weyn oo Soomaaliland ku timitaas waxaan leeyahay xuduudaha Ingiriisku dhigay ee gobolada iyo degmooyinka loo kala dhigay ee jamhuuriyadda Soomaaliland loo dhigay sida loo daayay haddii loo dayin waayo
wixii dib ka yimaada cidii faragelisaa ayaa ka mas'uul waxaan la hadlaynaa dadka nabadda inta nabadda jecel ee Soomaaliland ee gobolada kale ka mid ah oo sheegayna madaxweynaha oo sheegayna caalamka oo sheegayna deeq bixiyaasha doorashooyinka maalgelin oo sheegayna oo leeyahay war dimuqraadiyadda iyo dawladnimadii Soomaaliland hadii la fargasho asaa la gashay wax ka qabtaan leeyahay waxaan leeyahay xuduudaha sida loo daayay dadka ummadda shicibka ee masaakiinta deganna dib yaan loo geysan dawladnimada ayaa meel laga dhicin dadka dariska walaalaha ayna colada dhigin waxaan leeyahay war dalku nin walba yahay intii uu dhigay oo siiyay uu haystay ha ku filaato dal balaarsi maanta ma soconayso nin halkiisa laga qaadan maayo waxa weeye mamadana waa inoo wada dan waan ku wada nool lahay dawlad baan ku nahay qaran baan ku nahay waliba adaa maanta iga qoor weyn oo ku filadan de waxa la yiri caanadiiday dalaabana mooyaan baa ninkii nabadda dalaabana mooyaan dadkaasi waa sida uu sheegay waashiga horta ay sheegeen waxa waa sabiil ya muslimiin weyn waxaan leeyahay kuwa dibadda jooga oo dhashay dadka waxaan leeyahay dadkiina saala dhibada soo caawiyaan leeyahay waxa loo xog baahin soo qortaan leeyahay dadka nabadda jecel waxaan leeyahay dadka hada dulmiyayo u heliyaan leeyahay dawladda waxaan leeyahay dulmiga wax ka qabo ya waxaan ilaahayna warkaya wax noo hadho kale ma jirto waxaan leeyahay xuduudaha sida loo daayay goobahaasina gobolka ka tirsanaa loo daayay diiwaan gelin uma hadhano hadii la diiwaan gelinayo maalintii oo diiwaan galantahay maalintii gobolka oo la diiwaan gelinayo maxaa lagu dari waa ujeedo dadkii halka degan way diiwaan gasheen codub iska diiwaan gasheen wax ka hadhay ma jirto waxa weeye waa ujeedada qarsoon ya ee hoosta laga wadaayo laga daayay socod waa dawladda ayaa la xumaynin war qaranimada ayaa meel laga dhicin war ummadda ayaa lagu gafin war dadka sida loo daayay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim lixda goobood waxay u muuqdaan qasa Falastiin baa deganeed waa laga raro yuhuud baa la furay maanta anagu waxaan nahay Falastiin cid la soo rarayna wax tahay mooy Falastiin iyo maxaa u dhaxaya yuhuud isqarxin baa u dhaxaysa xukuumadda waxaan kula tartaarmaya akhriya adduunyo wax baa waxa jira cadaalad hadday xumaato dhibaato timaada dadka meesha degan waxaan kula tartaarmaya dagaalku barbu yahay waajib oo ninka fulaha ay hordaalkooda maanta waxaan taaganahay sabiilullah dagaalkii xud baa galayna ninka maanta dib jeediya ama nabadoo doonay ee hordaalku fariyo dagaalkiina kitaab baa ogol nimanka siyaasadda lagu jirana waxaan leenahay nibaa yiri xaladaashi gableelo digi walaalki huwalo adiga wax ku dhiman mooyaane wax way wadina wardiga wax idin dhiman mooyaane anaga xon loo dhina wassalaamu calaykum.